magaca uu ku jiray musalsalka walaalaha ee Turkiga ah waxa uu ahaa Kadir. hase ahaatee magaciisa dhabta iyo taariikh nololeedkiisa ayaad ku daawan doontaan xogtan. Xaliif Özgür Zari waa magaca dhabta ah ee Kadir, aktarka jira musalsalka walaalaha ee Turkiga. haddaba aktarkan waxa uu ka mid yahay kuwa firfircoon ee musalsalka sanada 2021 ee xiisaha badan ee socdo walaalaha isagu markaa jilaya. haddaba taariikh nololeedkiisa ayaan guda gali doonaa. Xaliif Özgür Zari waxa uu dhashay sanadkii 1993 isaga oo ku dhashay sida la xusuusto magaalada Istanbul. dhinaca kale waxa uu isagu ka qalin jabiyay jaamacadda Istanbul Bilgi University la yiraahdo, waliba qaybteeda ama departmentiga dhanka dhaqaalaha economicska kadib markii uu ka qalin jabiyay dugsigii sare. dhinaca kale waxa uu Xaliif ahaa mid isagu dharka modelka xayisiin jiray tan iyo dugsigiisii sare iyo sanadihii college-ka. waxa uu ninkan isagu ka soo muuqday wajiyadiisa marka loo eego ganacsiyo fara badan oo ah brands aad u kala duwan oo kambaniyo kala duwana. intaa kadib marka taa laga tago waxa uu bartay qaybaha jileenka isagoo caawinaad ka helaya atriishada Turkiga ee lagu magacaabo Ezra Kizildogan. haddaba dhinaca basiga iyo qaybta advanced ee dhanka jileenka waxa uu ku soo qaatay Craft Studio la yiraahdo. intii lagu guda jiray sanadihii kaamarada waxa uu sidoo kale garab ka helay Ergini Kanat. xirfadda haddii aan u soo talowno dhanka xirfadda jirista sanadii 2018 Xaliif Zari waxa uu bilaabay xirfadda jirista isagoo ka soo muuqday mid ka mid ah taxanaha TV-yada ee lagu magacaabo Dris Ertugrul kaasoo markaasi ka baxay TRT1 halkaas oo uu sidoo kale sameeyay Mehmed Bozdag. doorkiisu waxa uu ahaa Saleyman Alva. musalsalkan oo isagu markaasi uu aad doorkiisa uga soo muuqday. xaaladdu waa sidaasi. dhinaca kale intaa kadib waxa uu isagu ka mid noqday mid ka mid ah taxanayaal ka baxayay Netflix, waliba Arif oo isagu ka mid ahaa xidigihii jilayay The Protector musalsalka la yiraahdo sanadii 2020. sidoo kale waxa uu qayb ka noqday Champion oo isagu ama marka afka caadiga la yiraahdo noqonaya Champion, waxaana uu ku jiray Karim isaga oo ka mid ah doorkaasi kuwa caanka ah ee lagu yaqaano, waxaana laga sii daayay TRT1. sidoo kale waxa uu doorka Clinic Mudru oo ku jiray ama Murad TV serieska ama taxanaha TV-ga ee Kirmizi Oda oo dhinaca kale noqonaya The Red Room qolkii gudoodna lagana sii daayay TV8. sidoo kale waxa aad loogu yaqaanaa ka muuqashada mashaariicda ugu waaweyn ee iyagu dhanka musalsalada marka ay noqoto, waxaana dhinaca kale imika uu ka mid yahay The Sibling musalsalka la yiraahdo ee isagu 2021 ka soconaya ee afka marka Turkishka ku soo baxay laakiin afka Soomaaliga loo bedelay. dhanka shakhsiyadda noloshiisa haddii aan eegno Zari ama ninka lagu magacaabo Xaliif Zari waxa uu isagu yahay taageero u go'ay kooxda kubadda cagta ee Fenerbahce ee ka dhisan ama ka ciyaarta horyaalka wadankaasi Turkiga. sidoo kale waxa uu isagu soo maray ama uu ku riyoon jiray inuu noqdo nin astronaut ah ama cirbixiyeen markii uu yaraa. sidoo kalena waxa uu isagu yahay mid aad u sixda kaliya waxa uu soo kacaa marka loo sheego ama laga kiciyo, hase ahaatee ma noqon weligiis mid ka habsaama shaqooyinka uu qabanayo. waxaa dhanka baraha bulshada kala xiriiray barta Instagram-ka in ka badan 500,000 oo qof oo markaa followerskiisa ka mid ah. haddaba waan filayaa xogta ninkan Kadir ee ka tirsan musalsalka walaalaha ee afka Turkiga af Soomaaliga loo bedelay afka Turkigana ku soo baxay. ku mahadsantahay meel kastoo aad inaga daawanayso muuqaalka like inoo saar mahadsanid daawade.